kulankani ay soo qaban qaabisay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya isla markaana ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaraddaasi professoro culimaawidiin iyo haween ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. kulankani oo ahaa mid lagu shaacinayay guddi ka kooban 5 xubnood oo ka shaqeynaya arrimaha awqaafta iyo zakawaadka. ugu horeyn kulanka waxaa ka hadlay Sheekh Cali Dheere oo ah agaasimo waaxid ka tirsan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya. waxa uu ka dhawaajiyay in guddigani uu yahay mid muhiimad gaar ah u leh bulshada Soomaaliyeed isla markaana uu ka shaqeyn doono sidii loo soo celin lahaa guryaha ay lahayd wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya oo tilmaamay in shakhsiyaad gaar ah ay haystaan dib loo nooleeyo. waxaa jira dhulal badan amba guryo fara badan oo ilal aanadan aan looga faa'iideysan ahaan arrimaha diinta iyo arrimaha bulshada aan looga faa'iideysan ee qaarkood xataa ay gacantooda ku jirto dad dhahaya anaa taabsaday. si loo sharciyeeyo waxtarkeeda iyo wixii ka soo baxana bulshaweynta adeegeeda ay uga mid noqdaan ayuu wasiirka qorsheeyay guddi 5 ah in arrintaas nidaamkeedii iyo qodobadeedii iyo qaanuunkeedii ay noo soo diyaariyaan. markay noqoto maqbuul oo dhinac walba laga ajido xagga wasaaradda iyo mas'uuliyiinta sarana waxaa la bilaabi doonaa wacyigelinta marka sidii loogu shaqay lahay oo bulshadoo dhan heegan ugu noqo laheeday in la hirgeliyo awqaafta iyo zakawaadka si ay u ogaadaan waxtarka ay u leedahay. dowladaha qaatay nidaamka kan oo ku shaqeeyey oo waxtar u yeeshay waxaa ka mid ah dowladda Suudaan oo 1 bilyan ka badan sanadka ka xaraysay oo hantidaas shacbiga inta geliso ku shaqaystaan kabacdina lagu soo celiyo bangi tanmiya. yacni bangi ayaga u khaasa waayo oo la yidhaha bangi tanmiya bangiga horumarinta waya macnaheeda saasay ku tahay sida ay dadka u yidhaaheen gareeditoo kale. marka arrintaas waa arrin daruuriya, waa arrin waxtar u leh bulshada, waa arrin waxtar u leh diinta, waa arrin waxtar u leh dadka ducafada ah oo qaabay u shaqaystaan ayna jirin ama dadka aqoon-yahanka oo shaqoon u leh arrintan inay u noqoto iyaga laftarkooda bulshaweynta shaqaday u shaqay lahaayeen qayb ka mida inay u noqoto. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay kusimaha wasiirka awqaafta ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya Cusmaan Aadan Dhuubow ayaa sharaxay guddigani inta xubnood uu ka kooban yahay iyo waxyaabaha uu qabanayo. ujeedo magacaabid guddi markaan arkay qodobka 102 ee dastuurka dalka, markaan arkay qodobka 2 farqadiisa 1-2 ee dastuurka, markaan arkay muhiimadda ay dalka u leedahay hay'ad ka shaqeysa arrimaha zakada iyo awqaafta islaamka, markaan arkay in ay tahay hay'ad ka jirta dhammaan dalalka islaamka, markaan arkay in ay tahay tiir ka mid ah tiirarka islaamka, markaan arkay baahida loo qabo aqoon-yahan takhasus sare u leh arrimaha islaamka. qodob koowaad waxaan u magacaabnay ka wasaarad ahaan number 1 Dr. Bashiir Warsame Maxamed Bashiir Caadil, Dr. Maxamed Cali Ibrahim, Dr. Xasan Khalifa Xasan, Sheekh Cabdicasiis Cali Xasan, Sheekh Xuseen Cabdirashiid Macalin. iyadoo oo guddiga guddoomiyaha u noqon doono guddiga ku magacaabnay Dr. Bashiir, gudoomiye ku-xigeenna Dr. Maxamed Cali Ibrahim. shaqada guddiga number 1 soo diyaarinta qaab dhismeedka hay'adda zakawaadka iyo awqaafta islaamka Soomaaliyeed, soo diyaarinta xeeroosaadka hay'adda zakawaadka iyo awqaafta islaamka, soo diyaarinta golayaasha hay'adda zakawaadka iyo awqaafta islaamka, soo diyaarinta qaabka wada shaqeynta ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo jamciyadaha khayriga ee ka howlgala dalka. 6 dabagalka iyo raadinta dhulalka waqafka
ay lahayn jirtay wasaaradda.